jirka bini'aadanka waxa uu ka kooban yahay 11 hab ama system. Hab walbana wuxuu leeyahay qaab dhismeedkiisa u gaarka iyo shaqadiisa. Haddii uu cudur ama saameyn uu soo gaaro hab ka mid ah hababka, wuxuu leeyahay sidoo kale calaamado u gaar ah oo lagu garto in habkaas ama systemkaas ay wax ka qaldan yihiin. Maanta muuqaalkeena waxaan diiradda ku saari doonaa calaamadaha cudurrada neef-mareenka iyo sanbabada lagu garto haddii aad doonaysid ka bogasho wacan. Calaamadda koowaad waa qufaca. Qufaca waa falfal celin ah oo ka caawinaysa nadiifinta marinada hawada ee xabka iyo waxyaabaha ku kicinaya. Waxaa kaloo loo kala saaraa mid degdeg ah oo soconayo in ka yar 3 toddobaad ama mid daba dheeraaday oo soconayo in ka badan 3 toddobaad. Qufaca waxaa loo qaybiyaa 2 nooc. Qufac qalalan, micnaha qufac aan wax xandhoofa ama xaaq ka soo saaraynin, badanaa waxaa keeno caabuqyada dhuunta iyo marinada hawada, iyo sidoo kale qufac wax soo saar leh productive cough ayaa la. Waxay soo saartaa xab ama xaako, taas oo muujinayso caabuq ama xaalado daba dheeraaday sida bronkiitada. Xaaladaha lala xiriiriyo qufaca waxaa ka mid ah neefta, bronkiitada raagtay oo foreen ama caabuqyada neef-mareenka sare. Calaamadda labaad waa dyspnea oo micnaheeda tahay neef yari. Qofka in uu dareemo in aysan hawada ku filnayn ama ay neefsashada ku adag tahay, waxay noqon kartaa mid degdeg ah ama mid daba dheeraato. Sababaha suurtagalka ah ee keena dyspnea ama neefsashada oo qofka ku yaraata waxaa ka mid ah neefta, xanuunka COPD oo loo yaqaano chronic obstructive pulmonary disease oo foreenka, wadna xanuunka ama xanuunka loo yaqaano pulmonary embolism. Neef-yaradu waxay saameyn kartaa ama waxay faragelin kartaa hawl maalmeedka, waxayna si weyn u saameyn kartaa tayada nolosha. Calaamadda saddexaad waa wheezing oo micnaheeda tahay hiiqsi. Waa dhawaaq aad u sareeya oo foorida oo kale marka la neefsanayo, gaar ahaan marka la saarayo neefta. Waxay tilmaamaysaa in ciriiri uu ka jiro marinada hawada hawo-mareenka oo badanaa lagu arko xanuunka neefta ama bronkiitada raagta. Waxay kaloo ku dhici karaan xaaladaha sida xanuunka emphysema ama marka marinada hawada ay xanibmaan. Calaamadda afraad waa xabad xanuun. Waa dareen ciriiri, cadaadis ama xanuun aagga xabadka ah. Sababaha suurtagalka ah waxaa ka mid ah oof-wareen, pleuritis oo ah caabuqa ku dhaco dahaarka sanbabada, pulmonary embolism ama bronkiitada raagta. Digniin, xanuunka laabta ayaa sidoo kale calaamad u noqon karo arrimaha wadnaha. Sidaas darteed waa muhiim in la kala saaro sababaha neefsashada iyo wadnaha. Calaamadda shanaad waa soo saarista xaakada. Xabka ama xaakada ayaa laga soo saaraa habka neef-mareenka, kaas oo la filan karo in aad qufacdo ama aad liqdo. Xaakada waxaan ku garanaynaa tilmaamayaasheeda midabka. Xaakada cad badanaa waxaa lagu arkaa caabuqyada fayraska ama falcelinta xasaasiyadda. Xaakada jaallaha ama cagaarka waxay muujisaa caabuqyada bakteeriyada ama bronkiitada raagta. Xaakada midabkeeda dhiigga yahay ama dhiigga ku jiro waxay muujinaysaa xaalado kasii daran kuwii hore sida TB-da ama qaaxada, sidoo kale ama kansarka sanbabada. Xaaladaha sidoo kale lala xiriiriyay waxaa ka mid ah bronchitis oo ah caabuqyada ku dhaco bronkaska oo foreenka ama cudurrada sanbabada ee raaga. Calaamadda lixaad waa daal. Dareemidda daal badan ama tamar la'aan. Sababtu waxay tahay cudurrada neef-mareenka ee daba dheeraado waxay ka dhigi karaan neefsashada mid aad u dhib badan, taas oo keenta daal. Waxayna ka dhalan kartaa dadaal dheeraad ah oo jirka ku doonaya in uu neefsado iyo hoos u dhaca sahayda oksijiinta ee unugyada. Calaamadda toddobaad waa cyanosis. Waa midab buluug ah oo lagu arko maqaarka, dibnaha ama cidiyaha, sababtoo ah oksijiinta dhiigga ku jira kuma filna. Waxayna tilmaamaysaa hypoxia daran, heerarka oksijiinta oo aad u hooseeya, taas oo noqon karto natiijada xaaladaha sida neef daran, xanuunka COPD-ga oo ka sii dara ama pulmonary embolism-ka. Waxay u baahan tahay daryeel caafimaad oo degdeg ah si wax looga qabto sababta hoose ama arrinta keentay. Calaamadda sideedaad, caabuqyada neefsashada ee soo noqnoqdo. Caabuqyada soo noqnoqdo ama joogtada ah ee habka neefsashada waxaa sababi kara habdhiska difaaca oo daciifa, xaaladaha sanbabada ee joogtada ah ama saameynta arrimaha deegaanka. Waxaana ku jiri kara sida hergebka, bronkiitada ama oof-wareenka. Infekshanada daba dheeraaday waxay kasii dari karaan xaaladaha neef-mareenka ee jira. Calaamadda sagaalaad waa qandho. Waa heerkulka jirka oo sareeya, caadi ahaan ka sareeya 100.4 Fahrenheit ama 38 degree centigrade. Waxaa lala xiriiriyaa caabuqyada sida oof-wareen ama bronkiitada ama jawaab celinta uu ka jawaab celinayo caabuqyada neefsiga. Muhiimadeedu waxay tahay badanaa waa calaamad muujinaysa infekshan hoose ama caabuq in uu jiro. Calaamadda tobanaad, tachypnea oo micnaheedu tahay neefsashada degdega ah. Waa neefsasho xawaare ka dhaqso badan sida caadiga ah. Sida caadiga in ka badan 20 neefsasho daqiiqadii. Dadka waaweyn waxaa loo yaqaanaa tachypnea.
waxay ku dhici kartaa ciriiri xagga neefsiga ah, qandho ama xaalado kale oo keena heerarka oksijiinta ee dhiigga oo hooseeya. Waxay tusinaysaa isku dayga jirka uu ku doonayo in uu kordhiyo qaadashada oksijiinta ama uu ka saaro sunta ama carbon dioxide-ka jirka. Calaamadda 11aad waa finger clapping. Finger clapping waxaa la lahaa marka qofku labadiisa xijo oo is saaro waxa u dhaxaynaya boos yar ama space yariis oo u dhaxaynaya ayaa jiro, balse qofka markuu calaamadan qabo booskaas dhan ma wajiri doono, ileen cijiyihii meeshii ayaa bararayso, hadhowdii spacekaas ayaa lumaya. waxaana lala xiriiriyaa cudurrada sambabada ee daba dheeraada sida cystic fibrosis, kansarka sambabada ama cudurrada sambabada ee interstitialka loo yaqaano. Badanaa waxay ka dhalan kartaa oksijiin la'aanta dheer ee unugyada. Calaamadda 12aad qofka jimicsigii ama dhaqdhaqaaqii uu samayn jiray oo isdhimay. Waxaa hoos u dhaca awoodda lagu sameeyo dhaqdhaqaaqyada jireed ee markii hore la maareyn jiray. Waxay ka dhalan kartaa shaqada sambabada oo yaraatay, oksijiinsiinta oo yaraatay, ama daciifnimada guud ee xaaladaha neef-mareenka ee joogtada ah. Waxay saamaysaa tayada nolosha, waxayna u horseedi kartaa qaab nololeed fadhiid ah ama liita. Haddii uu qof calaamadahan si joogto ah uga soo muuqdaan ama si xun uga soo muuqdaan, waxaa muhiim ah in uu daryeel caafimaad raadsado si loo garto sababta hoose oo loo helo daaweynta ku habboon. Intaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena. Waxaa inoo balana muuqaalada xiga hadduu Alla idmo. Khayr badan.